sheeko aad u xanuun badan idin kaga sheekeynaya. sheekadan in la yiraahdo waxaa mararka qaarkood culamo qaarkood ay dhahaan waxaa soo gudbiyey alwaliid ibnu cabdilmalik. maalin nin madax sar u ahaa, maalin waxaa u yimid nin reer cabas qabiil la yiraahdo. carabta in qabiilada la sheego agtooda waxba kuma ahayn, khaasatan marka islaamka ay soo galeen aqoonsi keliyu ahaa qabiilka. maanta oo kale ma ahan markaad qabiil sheegto qofna naxayo qofna farxayo. iyaga labadaba maba lahayn, waa ka gudbeen taas, ilaah naga gudubsiiyo. qofka markii qabiil magaciisa markaan sheego aniga oo sheekh xasan reer hebelaan ahay, waxaa la rabaa qof wax dareen ah haba yaraatay waa anoo magacayga idiin sheegaya sheekh xasan, wax isbedel qofka inaysan raad ku yeelan. marka ninkan reer cabas uu ahaa. calaa kulli xaal waxaana magacaasan ku keenay. ninkii alwaliid ahaa wuxuu ninkan imaanaya nin indhala uu ahaa. marka waliidaa wuxuu yidhi indhahan say kaaga dhaceen indha la-aanta. markaasuu yidhi sheekaan kaaga sheekeynaya. ninkii reer cabasaa ka sheekeynaya. wuxuu yidhi waxaa jirtay waqtiyada ka mid ah nolosheyda oo reer cabas, waa reerka aan ka dhashow dhah, oo aan ku jirin qof iga maal badan, si wax loo dhegeysta, 1 iga fardo badan, 2 iga geel badan, 3 iga caruur badan, 4 iga guryo badan iyo dhul. intaasoo dhan qof isku haysta wuxuu ku soo degdegaya carabkiina inaad dhahdaan qofkaasi waa taajir af Soomaaliga, waa qani, waa qof wax haysta, qof aad wax u haysta waayo oo ladan oo maalqabeen ah. saas uu ahaa, maalqabeen ah uu dhahay. hadda aan kula hadlayana wax aan haysta ma lahu dhahay. markaasuu yidhi iiga sheekaysay wax u dhacay. marka waxaasoo maal aad haysatay, waxaasoo caruur aad haysatay, xaaskaagii, maaragtay geelaagii, fardahaagii maxaa ku dhacay? wuxuu yidhi anagoo isaga joogno mar meel ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray roob xoog badan oo wata daad xoog badan inuu soo da'o. roobkii xoogga badnaa oo soo da'ay oo watay daad aan cidna cafinayn, walaa guryo walaa xoolo aa indhaheyganoo arkayo, ayaa wuxuu qaatay, oo isaga xitaa uu ku jiray laakiin meeluu qabsaday, wuxuu qaatay uu dhahay maaragtay ilmihii, xoolihii oo dhan, wixii geelaah oo dhan, marka laga reebo hal geela oo u haray. maaragtay halkaasna markii daadkii aragtay way baxsatay. waxaa kaloo caruurtii wixii maal uu lahaa, wixii farda uu lahaa, wixii oo dhan daadkaa qaatay. wax u hari ma lahan ilaa 2 maahan. 2da u hartay waxaa waaye ilmo hadda dhashay oo ilaahay amarkiisa ilaahay badbaadiyey oo ooynayo oo naasnuug ah, macnaha halkaasay hooyadiisa daadkiyaa qaatay, iyo hal maaragtay oo hashiisa ahayd oo maaragtay da ahaan yareed oo carartay. marka wuxuu go-aan ku gaaray hashaas carartay oo soo hartay xoolo ahaan inuu ka daba tago. ilmihii u naxay marka meesha inuu kaga tago, ilmihii soo qaatay, uu soo xambaaray, hashii daba orday. hashi waa sii fogaatay. markuu arkay inuu gaari karo isagoo ilmaha xambaarsan, ilmihii dhulka meel gees ah oo geed hoostiisuu dhigay. markaas hashii daba orday. markuu daba orday hashi, wuxuu maqlay ilmihii oo oynayo, oohin aan caadi ahayn oo qaylo ah. ilmihii markuu arkay gadaal uu soo jeestay, wuxuu arkay waraabe oo ilmihii sii qaatay. ilmihii la tegay oo qaatay, ilmihii ray ahaayeen. marka wuxuu u dhexeeyaa hashi ilmihii waraabaha qaatay. markaas kadib maadaama waraabihii uu cararay uu qaatay,
hashi uu u dhowaa hashi dhankeedu aaday marka hashii markii dhankeedu aaday mar alle markuu ku soo dhowaaday oo hashi uu raba inuu qabto oo aad ugu soo dhowaaday ayaa waxay ku dhifatay haraati oo xoog badan oo markaasi labada indhood banaankii u soo baxeen oo meesha ku dhaceen indhihiisa isagan dhulka ku dhacay marka isagoo suuxay dhulkaasa laga soo qaado xoolo ma hayo caruur ma hayo xaas ma hayo fardo ma hayo wax alle wuxuu lahaa oo dhan way tageen markaasaa markuu soo baxay oo macnaha uu soo kacay wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa darajo aada u saraysa waay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wixii uu isku dardaray wuxuu ogaaday ilaahay inuu imtixaanayo qofkana 3 arrinaa muhiim ah markii sabarka laga hadlayo kow in aad rumaysan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan inuu maamulo oo waxa kugu dhacayo haddaad u aragto xitaa wax xanuun badan inuu yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisana ka mid ahayd inaad rumaysan tahay waa kow 2 inaad og tahay ilaahay xikmad inuu ka wato xikmaddiis adiga faham ama ha fahmin alxamdu lilaah midda saddexaad alxamdu lilaah inaad dhahdo oo aad dhahdo ilaahu subxaana watacaala halkaas igu sintay alxamdu lilah culummada qaarkooda cumar ibn khataab wuxuu yidhi alxamdulilah in la dhaho xikmadda ku jirta waxaa waaye hadduu ilaahay meeshaas ku joojiyey horta alxamdulilah inaad dhahdo waa kow wax ka weyn haddii ahaan lahayd oo ah naftaada meesha inay ka baxdo 2 alxamdulilah waxaad u dhahaysaa hadduu ilaahay midda koowaad waxaa waaye hadduu ilaahay meesha ku joojiyo oo musiibo ka weyn oo naftaada xitaa haddii lagugu dari lahaa musiibo ka weyn ay ahaan lahayd 2 alxamdulilah waxaad u leedahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga uu ku doortay kuuna doortay inuu ku imtixaano imtixaankaasi marka in lagula doorto laftigeeda alxamdulilah aad leedahay 2 4 in imtixaankaasi kugu dhacay aysan diintaada noqon diinta haddii xagga diinta haddii lagaa imtixaano waxaa loola jeedaa waa diinta inaad ka baxdo waa musiibo aada u weyn dadaad diinta ka baxay oo soomaali ah ama diinta in lagugu imtixaano waxaa kaloo ka mid noqon kara inaad samayso wax diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala khalad weyn ku ah dembiyada waaweyn inaad caadaysato waa imtixaan waayo laftigeeda dembi weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u caroonayo inay caadi kuu noqoto waa musiibo imtixaana waxaan rabaa aan kusoo gabagabeynayaa sheeko kale sheekadaasa marka waxaan ka qaadanaynaa markay wax kugu dhacaan sida la rabo in loo dhaqmo sida ninkaasoo kale alxamdulilah uu ku ekaaday marka maanta dhan wuxuu ku celcelinaya alxamdulilah 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 ilaa dadka u malaayeen inuu waasho oo kale markaasuu qisaduu ka sheekeynaya alxamdulilah waa darajo waayo ilaahna gaarsiiyo markay wax kugu dhacaan oo dhib badan oo culays badan inaad dhahdo alxamdulilah waxaa kaloo aan kusoo gabagabeynaya qisada labaad niman soo dhumay iyagoo waddada maraayo waa dhumeen markii dambe waxay arkeen buul guri ah buulkaasay ku leexdeen albaabkii ku garaaceen hooyo waayelaa waxay dhahday yaa waayo waxay dhaheen waa niman soo dhumay oo ooman oona gaajaysan markaasi waxay ku dhahday waxaad samaynaysaan wax yar iikaadii waa idin imaanaya waa sugeen albaabkii ka fureen nimankii waxay dhahan waa hooyo waayeel ah oo cajuusa ah cajuusa macnaa waxaa qof aada waayeel waa waxay dhahan halkan fariista raashiina idin karinaya maamadii waa maamooyinkii hore waa oo xoolaha qali jiray
ومركاسي dhaqamada ugu waaweyn oo Soomaali ay leedahay ka mid tahay magaca Soomaal waxa laga keenaa leeyahay markii qof u yimaado waxay dhahayaan Soomaal ana hala Soomaal ana la Soomaaliya dadka qaarkood saas leeyahay Soomaali asalkeedu meesha ka timid waa martisoor qof Soomaali oo dhalad ah oo asal ah hadaa u timaado ku martisooraya martisoorka waa qayb ka mid ah diinteena نبي وحير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كان رمينا يا إلهي آخرنا رميسا مرتي مركي كوتي ماذا سودوي مرتي يكون مسكوش مرك يضع ربط حاله إني قد الجورع ذا ويسواق بطي فري حواليه كم يبقى أو حق أركتي بنانكي تعجنت هاي waxay aragtay geel soo socdo nin rati wata oo rati saaran nimankii meesha joogan hadal ka soo baxay maamadii wuxuu dhahay ratigan igu soo socdo ratiga wiilkaygu u egyahay laakiin ninka saaran wiilkayga ma ahayna hadalkaas waa hadal culus waxay dhahay ratigan sayfiir say wax kala taqaano iyadoo waa yeela ratigii wiilkayga waaye ninka saaran wiilkayga ma ahan marka waxbaad jira waay marka ka waran wiilkaaga aad dhashay hadduu kaa tago ilaahay ma qadare wax naxtin badan waaye oo markaasi kadib maalinka subaxdii bixi jiray galabtii imaan jiray galab galbaha ka mid ahaa baabuurkii waxaa ku yimid oo guriga keenay nin aan wiilkaaga ahayn furihin uu kuu keenay baabuurkii wiilkaagii ma wado laakiin qof kale kuu keenay furihiina kuu keenay inay wax jira waa fahmaysaa markaas ninkii waa yimid waxuu keenay maaragtay ratagi markaas kadib ka soo degay waxaa maama amaanadii waatan acdama allahu ajraka ilaahay ajirkaaga ajir fara badan ha ka dhigo oo u tacsiyanaya taasoo leeyahay marka qofka u tacsiyanaysa acdama allahu ajraka ilaahay ajirkaaga ha kuu badiyo هكو بركايو هكو وينيو لموت عقيلنا ويلكي عقيلها لمشهديسي هل سؤالي ويديس هذا كيف ما تسوق انت مركاسا وحيري مركي ورابك وسميني حوله او ربي انو ورهابيو ايا ازدحام سمي ايغا اسكو دحياعي مركاسا وحي كو قادين maaragtay haraati ceel weyn oo meesha ku yaalay uu ku dhacay oo dhintay maamadii marka maamo hal wiil haysatay oo u maqnaa marka waxaas loo sheegay kawar martina meesha fadhiisay markaas kadib waxay dhahday alxamdulilahi rabbil caalamiin kaalmay nimankii dhahday aan gowraco ridiyaa la gowracay biyaha ay jarjartay jikadii gashay waa yaaban yihiin maamo tacsi u taallo oo markaasi nimankii martida ahaa waa iimaanka markuu sareeyo ilaahu iimaankaasna siiyo ilaahu iimaankaasna siiyo ilaahu iimaankaasna siiyo raashinkii soo karisay wixii diyaarisay markaasay soo hordhigtay way yaaban yihiin anaga badankan saas uma dhaqmi lahayn ilaahu darajadaasna gaarsiiyo ilaahuna tarbiye markaasa markii waxa u soo dhigtaan nimanka waxay dhahday labadiina ma idin kugu jiraa qof quraanka aad u yaqaano oo xusuusiya sabarka iyo maaragtay dhimasho markay dhacdo labada mid kamid ah wuxuu dhahay haa uu dhahay aayada jirto ka hadlaysa waxay tiri marka ii akhri aayadu akhri marka وبشر الصابرين وبشر وبشارع عفوا في رعاية السوء ولا حلي وبشر وبشارع الصابرين يضع كجرت مرك لوي صبرت مرك حور رباه إلهي إنه يضع الله الله إنه تصير وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة كوا مرك مصيبة كل عضو مصيبة كل عضو ما مضي
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون oo dhaha إنا لله وإنا إليه راجعون annagoo dhan ilaahana leh ilaahaasan u noqonaynaa xaggiisa oo na xisaabinayo wax ilaahay uusan raali ka ahayn afkeena iyo gacmaheenna kama soo baxayaan قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون انت صار رأينا نحن مركي مصيبك وقلع وبشر الصابرين وبشاره آية القرآن وأخرى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه مصيبة يكون عدو حدها يعني إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات كواستشهد حاهر نحريس من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كوها نوسا نحريس إلهي نواهلايان كوها نوسا نويه مركز حديث يوعلي مركله مركز هذا أيضا هذا آخر اسمه قرآن كي كتر السنة ها وحان لي قرآن كنو أنا إله الله مركز حديث الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون qofkaasi saasoo kale maxaa loo dhisayaa guri ayaa jannada loogu dhisayaa xadiid xasan ah xadiid oo xasan ah ilaahay subxaana rasuulku wuxuu dhahay malaa'igta qofkii marka ilaahay nin oo ilaahay wiil uu jeclaa ilaahay ka qaatay oo ninkaas la imtixaanay ilmaha waa la jecel yahay laakiin ninkan wiil uu jeclaa oo aad u jeclaa ayaa ilaahay uu ka qaatay markaasaa nabiga wuxuu yidhi calayhi salaam malaa'igtuu ilaahay la hadlay malaa'igtii waxna malakulmowdkii intii la shaqaynaysa malakulmowdkii len kooxa la socoto la shaqaynaysa wuxuu ku yidhi aqabidtum walada cabdii waxaad qabsateen oo ruuxda aad ka qaadeen addoonkayga wiilkiisii uu jeclaa waxaa dhahay nacam ilaahay wuxuu yidhi aqabidtum ilahay wuu og yahay laakiin waxbuu rabaa inuu tusiyo malaa'igta aqabidtum iyo annagaba duruus ahaan iyo cilmi waxbaana la baraya marka ilmaheenna ilaahay uu naga qaato aqabidtum ma obsateen ma qaadeen ruuxdii il hadal ku xigo thamrata qalbigiisa thimaarteeda wuxuu jeclaa oo aad u jeclaa ka qaadateen nacam ay dhaheen markaasaa wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala muxuu dhahay markaad ka qaadateen oo ilmihii ay dhinteen muxuu dhahay markaasaa waxay dhaheen wuxuu ku celcelinayay alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ubnuu lahu waxaad u dhistaan bayt alxamd xamdiga gurigiisa ugu dhisa jannada gurigaa jannada ku yaalo dadka saabiriinta loogu talagala marka gurigaasa idin xusuusinaya inaan shaqaysanno idinka iyo annagoo dhan ilaahay sabarka hana waafajiyo waqtiga munaasabka ilaahay hana waafajiyo waqti munaasabaa jiray waqti aan munaasab ahayn haween oynaysay ayaa nebiga uu soo agmaray calayhi salaam ilmaheedaa ka dhintay aaday u oynaysay rasuulka marka inuu dejiyuu rabay uu la hadlay iyadoo qabriga agteeda ilmihii ag joogto wuxuu yidhi isdeji ilaahay ajir ka filo maaragtay waanuu siiyey marka way xanaaqday way ku jawaabtay waxay dhahday adi xanuunka kuma hayo markaas iska sii wadatay qayladii iyo oohintii nebiguu ka tegay calayhi salaatu wasalaam markay oohinta dhammaysatay ilintii ka dhammaatay oo iyada iska degtay keligeedii ayaa wuxuu yidhi qof agteeda joogay ma garanaysaa qofkii ku yimid hadaayad oo aad dhahday xanuunkii iyo waxaasi adig kuguma dhicin ma garanaysaa qofkaas waxay dhahday yuu ahaana nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam markaas dhahday laa ilaaha illa allah maxamada rasuulullah oo rasuulkii aan ku afceliyo saas aan ugu jawaabay waa carartay waa u tagtay nebiga calayhi salaam way salaantay markaasaa wuxuu yidhi al'aana asbir haddaan sabraya rasuulku wuxuu yidhi inama asabru ilan waa macalin oona loo soo diray calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala markaas ducadeenna rasuulka inay kala go'do maaha calayhi salaatu wasalaam macalinkii wuxuu yidhi inama asabru cinda sadmati aluulaa
sabarka waxaa loo baahan yahay qofka markii markii wax kugu dhacaan oo xanuunka oo gargariirto oo jirkaaga xanuunka uu hayo ee maaragtay as control karin markaas waa sabarka wixii loo baahan rasuulku wuxuu yidhi salaam kaas waa kan anigaan ku weydiinaya hadda oo aad soo daashay maya runtuu sheegi jiray macalinka waxaa lagu yaqaanaa dadka markuu wax baraayo runtuu u sheegaya ilaahay subxaana wa tacaala sabarkana waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala haddii ay wax dhacdo ay nagu timaado alxamdulilah ilaahay carabkana ha waafajiyo qalbigana ilaahay ha dejiyo aquulu qowlii hada wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu